Khubaradu waxa ay leeyihiin dhowrka qarni ee soo socda Soomaaliya iyo dhowr kale oo wadan waxa ay ka goy doonaan qaarada qadiimiga ah ee Afrika. Soomaaliya iyo Afrikana xilligaasi waxa u dhaxayn doonta bad aad u weyn. Aragtidanina waxa ay soo ifbaxday markii Kenya meel ka mid ah Koonfur Galbeed lagu arkay dhulgariir sababay dilaac weyn ee dhulka ah. Waayo dilaacyada noocani ee dhulka ah aqoon-yahanadu waxa ay leeyihiin waa dilaac ka turjumayo isbeddel weyn ee dhulka ah in qaaradani uu ku soo socdo. Malaayiin sano ka hor qaaradaha adduunka waxaa la rumaysan yahay in hal meel ay ku wada yaaleen. Intaa kadibna dhaqdhaqaaqa lakabyada hoose ee dhulka waxa ay sabab u noqdeen in qaaraduhu ay kala dheeraadaan iyo in qadad dhulgariir ah in dhulka ay u samaysmaan iyo in buuro foolkaanooyin dhulka ay ka samaysmaan ayay sabab u noqotay. Kala dilaaca dhulka ee malaayiinta sano ahna fahamkeedu waxa ay inagu qasbaysaa in aan juqraafiga dhulka iyo sida uu u shaqeeyo in aan dib ugu laabano. Haddaba si aan u bilowno muuqaalkani, haddii aad ka hesho muuqaalada caynkani oo kale ah si aan u soo badino riix calaamada waan ka helay mahadsanid. Dhulka aynu ku noolnahay waxa uu ka kooban yahay dabaqyo isdul saaran. Xitaa marka laga soo tago dabaqa atmosfeerka ee inagu hareeraysan, dabaqa ugu khafiifsan ee inagu aan ku noolnahay waa dabaqa loo yaqaano litosfeer. Intaa kadib waxaa ka hooseeya dabaq kale oo kuleyl ah waxaana loo yaqaanaa magma. Dabaqani magma inkastoo laba dabaq uu u kala qaybsamo waqti xaadirkani waxaa inagu filan oo keliya in aan hal dabaq u xisaabino magma. Intaa kadib dabaqani waxaa ku xiga unuga dhulka oo ah halka ugu kulul dhulka. Waxaana la rumaysan yahay wax weliba ee dhulka dhaqdhaqaaqa ilaa atmosfeerka sare in unugani dhulka dhaqdhaqaaqiisa in uu inaga caawinayo. Atmosfeer xoog badan in dunida ay yeelato, weliba atmosfeerkani oo dhulka ka difaacaya waxyaabaha halista ah sida dhagxaanta cirka waxaa sabab u ah kulaylka unuga hoose ee dhulka. Sidani oo kale dabaqyada hoose ee dhulka mid weliba waxa uu door weyn ka qayb qaataa qaab samaysanka dhulka. Dabaqa magma waa dabaq kulayl ah, heerka kulaylkiisu waa mid dareera qulqulaya ah. Sidoo kale magma waa dabaq aad u dhaqdhaqaaq badan waxa uuna dabaqani xambaarsan yahay birta, macdanta, nuxaas iyo waxyaabo badan oo bani aadamka agtiisa qiimo ku leh. Waxa uu dabaqani u dhaqdhaqaaqaa hab loo yaqaano convection movement. Kulaylkani magmaha dhaqdhaqaaq weliba ee ka imaada waxa uu si toos ah saameyn ugu leeyahay dabaqa sare ee dhulka iyo badaha. Waxa ayna u dhaqdhaqaaqaan saddex nooc. Marmar dhaqdhaqyada lakabyada waa kuwa isdulmara, marna waa isku dhaca, marna waa kuwa isku soo dhowaada, marmarna waa kuwa kala dheeraada. Mar weliba oo sidani ay dhacdana natiijada ayaa ka dhalata sida dhulgariirkii Kenya ka dhacay oo kale. Dhulgariirka foolkaaniyiinka kulaylada geotermaalada dhulka sida ay ku samaysmaan waa dhaqdhaqaaqa lakabka dhulka ee magma. Xilliyada ay isku soo dhowaadaan magmooyinka dhulka waxaa samaysma buuro waaweyn, waxaana halkaa ka dhici kara dhaqdhaqaaqoodii dartiis dhulgariir aad u weyn. Haddii ay bad tahay, waxaa ka samaysma halka ay ku isugu soo dhowaadaan biyaha badda ayaa sida buur oo kale halkaa ku bata. Haddii ay kala dheeraadaan magmooyinkani waxaa samayma jasiirado foolkaanig ah. Intaa kadib qofka waxa uu isweydiin karaa sidee dareere kulayl ah oo dhulka hoostii ku jira dhaqdhaqaaqiisa saameyn uu ugu yeelan karaa dhulkani weyn. Wax weliba maadaamada ay ku dul fadhiyaan dareerahaasi kulul marna adkaha ee magma kulaylkiisa ayaa suuragelinaya in dhulka marbajiho uu dhaqdhaqaaqo sida haddii weel biya ay ku jiraan dab la dul saaro kadib biyahaasi dushooda haddii waraaqad kartoon laga soo jaray ama wax bir haddii la saaro dhaqdhaqaaqa kulaylka biyaha dartiisa wixii la dul saaraba ay dhaqdhaqaaqayaan. Sidaasi oo kale marmar waxaa isku dhacaya ama hal meel wada imaan kara laba qaaradood markay isku dhacaan qaaradaha. Tamarta xooga badan ee ka dhalata isku dhacani waa mida buurahani ay ka samaysmeen.
dhulka oo dhan maanta waxa uu ku jiraa dhaqdhaqaaqani lakabyada dhulka. Si kasto inaga dhulka Afrika ay ugu noolnahay meel cimiladeedu ay kulul yihiin, waxaa macquul ah mustaqbalka in aan booska isku beddelno qaaradda Amerika oo baraf naguna uu inoo doo, laakiin tani waxa ay qaadanaysaa malaayiin sano. waayo dhaqdhaqaaqani dhulka waxa ay khubaradu sheegaan in sanad weliba dhowr sentimitir in qaaraduhu ay kala dheeraanayaan. nidaamka ugu fudud ee ardayda lagu fahamsiin karo in qaaradaha adduunka hal meel in ay ku wada yaaleen malaayiin sano ka hor, yoon qaaradaha mustaqbalka ay isku imaan doonaan mar kale, iyo in qaaraduhu ay kala dheeraan karaan. tusaalaha ugu fudud ee ardayda ay ku fahmi karaan waa tusaalaha biyaha karkaraayo. ugu dambayn, dhulgariirka dhulka Kenya, aqoon-yahanadu waxa ay leeyihiin waa kala fogaanshaha lakabyada dhulka. haddii ay kala fogaadaan, waxaa dhexda ka soo bixi doonto biyo bad oo taag ah. xilligaasi qaaradda cusub ee dhulka kala tegay waxaa ku midoobi doona Soomaaliya, Tanzania, Kenya, Itoobiya iyo Mozambique. balse goormee ayay si fiican qaaradahani u kala dheeraan doonaan? waa xilli aad u fog, balse hadda dhaqdhaqaaqa iyo kala dheeraanshaha lakabyada dhulka muddadoodii waa ay bilaabatay.